الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا waxay ku saabsan tahay masjidka iyo waxa laga macaashayo. Way Ramadaanta waxaynu ogsoonahay masaajidkaynu u badanahay, marka tacmiirta masjidka aynu camirayno waxyaabaha aynu ka faa'iideyno. faa'iidooyinku way badan yihiin. waxa kamid ah markhaatiga Ilaahay baynu helaynaa. Ilaahay waa wuxuu ka markhaati kacay cidda masaajidada camiraysa iimaan buu uga markhaati kacay. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآيات. masaajidada waxaa camiran dadka iimaanka iyo sifooyinka wanaagsan leh. markhaatiga Ilaahayna mid weyn weeye. marka qofku markhaatiga Ilaahay si uu helo inuu masjidkii camiro goor walba siiba Ramadaan, faa'iidadaas uu ku helaya. faa'iidada labaad waxa weeye baraa loo qoraya albaraa, inuu bari ka yahay balaayooyinka u daran. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi 40 maalmood, xadiidku culimada qaarkood saxiix bay ku tilmaameen, qaarkoodna xasan. 40 maalmood qofka imaamka la xidha ee allahu akbarta hore soo gaadha, kutibat lahu baraa'ataani baraa'atun min annifaq, baraa'atun min annaari wa baraa'atun min annifaq. naar iyo nifaaq ayaa laga siiroo gareeyaa oo loo qoraa inaanu naarna gelaynin, munaafiqna ahayn. 40 maalmood inuu ku dadaalo inuu allahu akbarta la xidha imaamka. taasi waxay keenaysaa inaad marka hore sii diyaar ahaato oo aada hore usoo dahaaro qaadato, adaanka timaado, sunnaysato, adigoo diyaara aada la xidhata. markaa waaba labada inoogu daranba, nifaaq iyo naar. hadduu labadaa Ilaahay naga salameeyo wax weyn baynu helay. masaajidka waxyaabaha laga macasho waxaa ka mid a almushaarakatu maca almalaa'ika. malaa'igta ina wehelinaysa caalamka sare ayaynu isku cindanahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas saxiixa waxa uu ku yidhi: majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuuna baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashiyathm alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah. dadku markay ku kulmaan beytka Ilaahay, dee guryaha Ilaahay masaajidada caan ku ah, kuwaa kaloo dhan waa gurigii hebel. 4 arrimood bay helaan dadkaa guryaha Ilaahay ku akhriyaya, yatluuna kitaab allah, Ilaahay kitaabkiisay akhriyayaan, gurigii Ilaahayna way joogaan. wayatadaarasuuna baynahum, kitaabka Ilaahayna way isu dhigayaan oo way isu sharxayaan. sidaa imikaba aynu wadna allah inoo aqbaleen. mudaarasay ku wadaan inay kala faa'iidaystaan. 4 arrimood ay helayaan waxa weeye deganaanshaha ku soo degaya. deganaanshuhuna waaba taynu u baahannahayba. dadkuba imika way wada kadeedan yihiin, way wada kacsan yihiin, way wada warwarsan yihiin. markaa deganaanshahan Ilaahay warwarkaasuu kaa bi'iyaa iyo walbahaarka. naxariisina way daboonaysaa, malaa'igtuna way la joogtaa. Ilaahayna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta agtiisa ou leeyahay: bal dadka masaajidkayga camire martida ay ahee aniga iga sugaya naxariis. wuxuu markaa nabigu raaciyay: waman bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu. qofka camalkiisuu dib rido, abtirsimadiisu halu marin mayso. anigu reer hebel baan ahay buui, anigu Ilaahay agtiisaan darajadaa ku leeyahay, anigu kaasaan ahay, aniguduu badiyo meelahaasuu iska fadhiista. marka camalkiisa mar haddii camalkii laga dheereeyay qoladiisa horu marin mayso. waxyaabaaynu ka faa'iidayna waxaa ka mid a waa calaamatun cala rujuula, in masjidka Ilaahay aada joogto oo aada camirto oo aada ku cibaadaysato. qur-aanku raganimo uga markhaati kacay. masaajidadu Ilaahay ka warramay qur-aanka dhexdiisa
nuurka laga sahay qaadanaya suuradda loo yaqaano suuratu nuur markaa waxaa ku jira yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaali rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati ilaa aakhiri ilaayat masaajidaa nuurku ka baxayo waxay ilaahay ugu cibaadaysta raga ilaa kii kale liiska dumarkuu galay markuu gurigaba ka soo bixi waaye raganimadu meelay leedahay dadka dagaalka ku jira cadowga hortaagan ilaahay waxau ihi min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayh mar hadday cadowgii la dagaalameen waa raga mar hadday maantida ka soo baxeen oo shaydaankii ay la dagaalameen oo masjidkii ay yimaadeenna rijaal raganimo ayuu qur-aanku uga markhaati kacay fawaaidkay ka mid tahay fawaaidka waxaa ka mida qofku markuu masjidka ku tukada ee meesha uu sii fadhiyo laa zaala fii salaa salaadunbuu ku jiraa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka halkii uu ku tukaday fadhiya ilaa salaad kale intay soo gelayso ee aan dhibaato samaynin salaadunbuu ku jiraa waxaa loo qorayaa inuu ajrigii salaada leeyahay waxa uu ku helayaa qofka muuminkii faa'iidada lixaad weeye cibaado kaloo la yidhaha ictikaaf oon meel kaleba laga helin qur-aankuna sheegay axaadiidta nebigana ku cad nebiguna caadaysan jiray weliba ramadaanta waa cibaadada loo yaqaano alictikaaf in masjidka aada ku xasisho biniyati alictikaaf adigoo niyoonaya markaad masjidka soo gasho waxaad niyoonaysaa cibaadada la yidhaha ictikaafka markaasaa lagu furayaa inuu ajri kuu bilaabmo inta aada fadhido oo dhan iyaduna waa ajri baa kuu soconaya oo cibaadad wadaa walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka waxaa ka dayna buu ihi ilaahay idinkoo masaajidada degan oo ictikaafsan rasuulkuna ramadaanta sala allahu calayhi wasalam iyo dadkeennii saalixiinta waxay badin jireen inay masjidka galaan oo ay ictikaafaan waxaa toddobaadoo laga helaa in aynu ku biirno toddobadu maalinta ilaahay u hadhaynayo maalinta qiyaamaha haddaad masjidkii ka dhammaan weydood ku noqnoqoto halka dadka qaarkood malaahiga iyo meelaha lagu ciyaaro ay kaga noqnoqdaan qaarkoodna meesha wax laga cuno qaarkoodna meesha wakhtiga lagu lumiyo adigu haddaad masjidkun kusoo noqnoqoto maalintay dadku wada kadeedan yihiin inay wada kulul yihiin dadku ilaahay u hadhaynayaad ku jirtaa dad iskuma jiree dadka hore u soo baxay sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu toddoba ilaahay u hadhaynaya maalina har kalama jirinka ilaahay mooyaane waxaa ka mid ahaa warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasjid aw bilmasaajid labada riwaayo way jiraan waxaa ka mid ahaa nin qalbigiisu ka soo deldelan yahay masjidka siduu ugu noqnoqonaya waxaad moodaa laambadaa masjidka suran oo kale kii qof markaad soo gasho waad arkaysa markaad ka sii baxdo uu kaaga dambeeyaa waa ahlulmasjid markaa dee inaynu maalintaa harhkaa helo iyo casuumaddaa gaarka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala wax sahlan maaha arrinta sideedaad waxa weeyaan waa cidamu lkhayri fiih alladii laa yaclamuhu ila allah khayr ilaahay unu ogyahay oo intaaba kasii dheer baa jira rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa waxa uu ku yihi low yaclamu nnaas maa fi nnidaa'i wasafi alawal uma laa yajiduunahu ilaa an yastahimuu la stahamuu calaa macna xadiid calaa riwaayati bilmacna hadday dadku garan lahaayeen safal awalkaa waxa ku jira ee khayr ah iyo adaankoo loo ordo oo hore loo tago loo ajiibo waxaa ajriyahe ku jira oy si kale ku waayaan way u qori tuuran lahaayeen waxay noqon kartaa adaanka ayay u tartami lahayn anaa adaamaya safka anaa gelaya hadday si kale ku waayaan qori tuur bay ku qaadan lahaayeen idan waxaasoo dhan iyo wax ka badan baa lagu helaa marka macaashkan aakhiro waxinoo anfacaya ee miisaanka inaga buuxinaya kuwan iyo kuwo kalunbaa ka mid a qofka arrimahan badiyey ee buuxsaday dadka kale dee wuu ka dheeraynayaa mar hadday caynkaa tahay oo waxaasoo dhan masjidka laga macaashayo waa muhiim ilaahay baynu u casuumanahay oo aynu duyuuftiisii iyo martidiisii nahay adaabtana inaynu ogaano adaabta
oo qofku haddii uu cid u ixtiraamayo meesheediiyo baradeeda yimaado aadaab buu ku dadaalaa adab daradana wuu iska ilaaliyaa marka masaajidku wuxuu leeyahay aadaab aada u badan oo u baahan in waqti gaara laga hadlo intana aynu se kusoo koobsan doonaa insha allahu allah inagu anfaco bushaarooyinkaana ilaahay haynoo aqbalo camalkeena dhammaantiina allah inoo aqbalo sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wasubxaana rabbik